marka aynu si xeel dheer u eegno wax walba oo noloshan ku saabsan waxaa soo baxaya hal shay waxaa soo baxaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in uu jiro sababtoo ah sideeba wax walba oo aanu arkayno oo nolosha ku xeeran ay u jiri karaan Ilaahay la'aantiis sababtoo ah Ilaahay isaga ayaa ah kan wax walba oo muuqda na tusay sidoo kale Ilaahay wax walba oo aynu arkayno uu ka dhex muuqda oo waxa ka dhex muuqda weynidiisa iyo hal abuurkiisa iyo xigmadiisa waxa kale oo shay walba aad ka dhex arkaysaa Ilaahay isaga oo uu maaragtay cibaadeysanaya geedaha wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa Ilaahay yiri wax walba Ilaahay abuuray Ilaahay bi xusayaan sidoo kale Ilaahay wax walba oo adduunkan saaran wuu istusay oo wuxuu isku tusay qaab isaga uu ugu talagalay annaga bin aadanka ah Ilaahay wuxuu isku kaayo tusay inuu annagana abuuray oo naga abuuray wax aad u yar biyo baan ka abuuray marka aynu wax dhisayno ama wax alifayno ama wax urinayno waan ognahay dadaalka aan gelino dadaalkaas oo abuuraya shay marka la taaban karo balse xigmadda ku jirta ama maaragtay in aynu ka nimid innaga laftirkeena wax abuurayna biyo waxa ayna tusaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weynidiisa sidoo kale Ilaahay waa kii jiray oo joogay wax walba oo adduunkan yaal ka hor waxa aanu naqaan waxaanu aragnay iyo waxaanan aqoon ama aanan arkin subxaanahu wa ta'ala waxa weeye Ilaahay waa Allah kaliya oo wax walba ay muuqashadiisu ka weyn tahay waayo wax walba oo weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weynidiisa ayaa ka weyn sababtoo ah wax walba Ilaahay ayaa abuuray sidoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa isaga waa keligii ee aan u baahnayn wax wehel ah oo cid u heliyeesha aanan u baahnayn sidoo kale Ilaahay waa kan nooga dhow wax walba sida aayadda quraanka ay dhahayso wa nahnu aqrabu min hablil warid sidoo kale intaas oo la isku daray waxa ayna barayaan in aysan waxba jireen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la'aantiis inta aan soo sheegnay waxa isku soo koobaysa aayadan yaab ka badan oo xikmadda iyo nuxurka weyn xambaarsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayadaas wuxuu ku soo xiray ma waysan ku filnayn wax walba oo la fiiriyo oo aad sa u fiirisid in aad ka dhex arkaysid hadda xeel dheer ku fiirisid Ilaahay weynidiisa iyo xigmadiisa iyo abuurkiisa iyo awoodiisa iyo sareyntiisa iyo dulqaadkiisa iyo dheeraadkiisa iyo dhimrintiisa iyo naxariistiisa iyo wax walba oo wanaagsan oo noloshaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xardhay intaas ayaan ku soo koobaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته